kulan wanaagsan daawadayaal halkan waa shabakada heega news ku soo dhawaada akhbaaraadkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka daawade marka koobaad waxaan ka codsanaynaa hadii ay tahay daawashadaadii koobaad inaad subscribe noo saarto maasanid maamulka Ahlusunna wal Jamaaca ka jira dowlad goboleedka Galmudug ayaa beesha caalamka waxa uu gudbiyeen ilaa 20 xildhibaan ay kaga qayb galayaan xildhibaanada cusub ee la soo xulaya kaasi oo la filayo in dhawaan laga bilaabo deegaanada maamulkaasi iyagoona iska indhatay heshiis lagu galay saami qaybsiga ay leeyihiin beelaha halkaasi dega marka xulista xildhibaanada cusub ee baarlamaanka maamulkaasi la joogo kooxda suufiyada ayaa xildhibaanada beelaha ay ka qaateen sidaan uu soo kala dhigay Saleymaan 2 xildhibaan halka Marixaana ay 4 xildhibaan siiyeen Duduble hal xildhibaan Cayr 5 xildhibaan Mursadana hal xildhibaan Sacadna 2 xildhibaan halka Sheekhaal hal xildhibaan ay siiyeen sidoo kalena Darna ay 3 xildhibaan siiyeen sida uu heshiisku Ahlusunna iyo dawladda dhexe iyo sida ay guddiga doorashooyinka Galmudug ay xaqiijiyeen waxaa jiray heshiis lala galay Ahlusunna oo dhigay in beeshii wax ka badan 8 xildhibaan ay ka heli karaan halka xildhibaan haddii beesha leedahay 8 xildhibaanna ay Ahlusunna ka heli karto 2 xildhibaan beeshii leh 12 xildhibaan waxa ay ku soo qoreen karaan 2 xildhibaan halka 4 beesha leh ay 5 xildhibaan ay ka qaadan karaan ilaa iyo 3 xildhibaan xadgudubka Ahlusunna ee heshiiska beelaha tusaale ahaan beesha sacad ee Galmudug ku heleen 6 xildhibaan waxaana ay Ahlusunna ka qaateen 2 xildhibaan halka heshiiska uu dhigay beesha 8 xildhibaan ka yar hela hal xildhibaan ka qaataan beesha Saleymaan oo leh 7 xildhibaan ay ka rabaan in ay ka qaataan sidoo kale hal xildhibaan kaliya waxayna ka qaateen 2 xildhibaan halka beesha Cayr oo leh 6 xildhibaan ay ka qaateen 5 xildhibaan Marixaan waxa ay ka leeyihiin 16 xildhibaan waxaana laga rabay inay ka qaataan 3 xildhibaan halka ay ku soo qoreen 4 xildhibaan Mursado oo 12 xildhibaan ku leh Galmudugna waxay ka qaateen hal xildhibaan dhanka kalena Ahlusunna waxay xildhibaanada kama qaadan beesha Abgaal iyo Xusbul Hawiye kooxda Ahlusunna wal Jamaaca ee gobolada dhexe ayaana la rumaysan yahay in mar kale ay heshiiska la gashay dawladda federaalka Soomaaliya meel kaga dhacday burburisana heshiiskaasi ay kala saxideen dawladda federaalka Soomaaliya iyo kooxdaasi Ahlusunna wal Jamaaca ilaa waxa daawanaysan daawadayaal wararka shabakada heega news markana dagaal qasare geystay ayaa waxuu goof guduud ku dhaxmaray ciidamada dawladda iyo xarakada al-shabaab ciidamada dawladda ayaa dib u la wareegay deegaanka goof guduud ee duleedka magaalada Baydhabo kadib markii ay qabsadeen dagaalyahano ka tirsan xarakada al-shabaab kuwaas oo weerar culus ku qaaday goobjoogayaal ayaa sheegay in ciidanka xoogga dalka ay weerar culus oo rogaal calis ah ay ku qaadeen deegaanka goof guduud iyagoona ugu dambeyn ka saaray al-shabaab halkaasi qoraal lagu daabacay baraha internetka ee al-shabaab ayaa waxay sheegeen in dagaalkii goof guduud ay ku dileen ilaa 10 askari oo ciidamada dawladda kuwaasi oo ku jiraan sargaal magaciisa lagu sheegay macallin Daayo oo ahaa taliyaha xigeenka saldhigga goof guduud sida ay sheegeen balse saraakiisha ka tirsan ciidamada xoogga dalka ee Soomaaliya ayaa beeniyay warkaasi iyagoo ona sheegay in laga warqabo wararka al-shabaab isla markaasina ay waxyeelada soo gaartay ciidankooda ay aad u yar tahay iyagoo ona xusay in khasaaraha culus ay gaarsiiyeen kooxda weerarka soo qaatay sida hadalka u dhigeen wararka ka madax bannaan labada dhinac ayaa sheegay in ku dhawaad 10 ruux oo isku jira labada dhinac ee dagaalkaasi iyo dad shacababa lagu dilay weerarka halka qaar kalena oo badanna ay ku dhaawacmeen sida ay sheegeen wararka madax bannaan aan ka helano deegaankaasi wili waxa daawanaysan wararka shabakada heega news saaxiibayaal markana wararka ka imaanaya magaalada jigjiga ee dowladda deegaanka Soomaalida ayaa wuxuu sheegay in tuulada Xooley ee duleedka magaaladaasi uu dhacay shil gaari oo sababay khasaaro dhimasho iyo dhaawac shilkan kadib waxaa rogmaday gaari bas ah oo ka yimid magaalada jigjiga kuna sii jeeday magaalada Dhagax Buur oo rogmaday warka ka soo baxay booliska deegaanka ayaa lagu sheegay in shilkaasi ay ku geeriyoodeen 4 ruux oo isku jira 3 dumar iyo 1 rag halka ay ku dhaawacmeen 12 ruux oo kale oo dhaawacooda la geeyay magaalada jigjiga maxamed siyaad oo ah madaxa dambiga ka hortaga ee gobolka Faafan oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in 12 ruux ay ku dhaawacmeen halka 7 kamid ah ay xaaladoodu culus tahay laguna daaweynaya isbitaalka Karamardha iyo Sheekh Xasan Yabar ee magaalada Jigjiga
markana warka soo baxay taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ciidamada dawladda ay ka hortageen qorshaha al-shabaab ay ku doonayeen inay weerar ku fuliyaan deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose. taliyaha guutada 11aad ee qaybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka gaashaanle sare Maxamed Badal Xasan oo la hadlay warbaahinta dawladda ayaa sheegay in ciidamada ay ka hortageen xubno ka tirsan al-shabaab kuwaas oo qorsheynayay in amni darro ay ka qayb qaataan deegaanada Jamaame ee gobolkaasi. waxa uu intaasi ku daray sareeya in howlgal qorsheysan oo ay ciidamada ka fuliyeen deegaanada Caraare, Muuse, Xaaji iyo waliba Kaban oo qiyaastii degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose u jira 5 kilomitir ay ku dileen tiro kamid ah al-shabaab halka ay kuwa kalena ku dhaawaceen. waa sida uu hadalka u dhigay taliyahaasi. gaashaanle sare Maxamed Badal Xasan ayaa xusay in ujeedka howlgalkan uu ahaa markii ay ka war heleen dhaqdhaqaaqa ay sameynayaan al-shabaab oo ahaa biyaha webiga ay ku soo fureen xaafadaha kala duwan, isagoo intaasi ku daray in ay ka hortageen weerarkaasi ay qorsheynayeen. howlgal qorsheysan ay ciidamada fuliyeen waxay noqdeen mid miro dhal ah oo ay ciidanku ay ku fuliyeen meel qiyaastii 5 kilomitir u jirta degmada Jamaame. qorshaha soo socday ayaa ahaa in aan fariisin ka dhigano degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe, ayuu yiri taliyaha guutada 11aad qaybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka. si kastaba howlgallada la sheegay in ciidamada dawladda Soomaaliya ay ka fuliyeen gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa uu ku soo aadaya xilli ciidamada dawladda iyo al-shabaab ay dagaal culus ku dhaxmaray deegaanka Goofguduud ee gobolka Baay. dhacday haddii ay tahay markii kugu horeysay daawashada channelkan fadlan subscribe noo saar si aad noola socoto wararkii ugu dambeeyay iyo warbixinadii Soomaaliya iyo dunida.